xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta shaacisay in lagu guuleystay xakamaynta xanuunkii shuban biyoodka ee bilihii la soo dhaafay ka dilaacay gobolka Togdheer. Munaasabad lagu shaacinayay in lagu guuleystay xakamaynta xanuunkani oo ay soo qaban qaabisay hay'adda Bisha Cas ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta sarsare wasaaradda caafimaadka, maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco. Ugu horreyn waxa munaasabada ka hadlay mas'uuliyiinta hay'adda Bisha Cas ee heer gobol iyo heer qaran oo gacanta ku hayay xarumihii lagu dabiibayay dadkii oo asiibay xanuunkii shuban biyoodku, waxaanay faahfaahin ka bixiyeen gurmadka laga galay xakamaynta xanuunkani. xafladan xiritaanka xanuunkii shuban biyoodka ee aynu dhammaynay ilaahay naga dhammaystiray oo ah mid intaynan aynu ku wada shaqaynay intaynan oo dhan mid meeldheer ka yimi oo dadka dibadda naga yimid ah iyo maamulka dowladda mid qaran mid gobol mid degmo mid xaafadeed dhammaanteen hay'adaha kale dawliga ee gobolka jooga waxaynu ku wada shaqaynay dhammaanteen. xafladan maanta xidhitaan ayaynu qornay laakiin hawshu ma xidhna. hawshii waynu hoosumaynu u dhignay oo halkii ay ka ahayd xarun weyn ayuunbay waxaynu ku wareejinay wasaaradda caafimaadka. isbitaalka dhexdiisa ayaynu ka samaynay xaruntii hore ee dadka shuban ku dhaca loogu daweynayay inaynu samayno xarun intii hore ka yar oo ka kharash yar oo ka shaqaalo yar maadaama wixii aad iyo aad hoos ugu dhacay. markaa hoos baynu u dhignay oo muddada 3 bilooda soo socda isha ayaa lagu hayn doonaa. aad iyo aad baan jecelahay inaan madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland aan halkan uga mahadnaqo, waayo amarkii meesha laga bixiyey waxa weeyaan kii ay hay'ad waliba nagula shaqaynaysay buu ahaa, wax walba lanoogu fududaynayay. wasaarado badan oo hawshaasi ay wasaaradda caafimaadka hormood u ahayd ayaa hawsha nala fududeeyey. waxaa aad iyo aad Allah ugu mahadnaqayaa madaxda qaranka Soomaaliland aan ugu mahadnaqayaa. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer, maayir ku-xigeenka degmada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer oo hadalka isaga dambeeyay ayaa ka hadlay tirada guud ee hadda u jiifta xanuunka shuban biyoodka, waxaanay mahadcelin ballaaran u direen cid kasta oo ka qayb qaadatay xakamaynta xanuunkani. alxamdulilah rabbil caalamiin oo noo soo gurmatay ururka Bisha Cas ee Somaliland uu hogaaminayo mudane Bakaal iyo Bisha Cas ee gobolka oo uu hogaaminayo Cabdi Cawil. intaa waxaa noo soo raacay federationkii. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa International Federation of the Red Cross, especially the Canadians, the Norwegians, the Australians and the others. gurmad qaran baa laga waxaan ugu faraxsanahay in lagu guuleystay. mahadnaq gaar oo maanta cid gaar ah loo jeedin karaya oo ku koobnaa runtii way ka weyntii. sidaa daraaddeed waxaan u mahadcelinaa mar labaad cid kasta oo ka qayb qaadatay Bisha Cas ee gobolka Togdheer iyo shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda caafimaadka gobolka oo u badnaa dhalinyaro yaryar oo ka soo baxay iskuulkan Bisha Cas oo mutadawiciin marna la ilaawi kari maayo taariikhda gobolka iyo degmaduna way geli doontaa. aad iyo aad baan haddaan maamul iyo gobol lahayna haddii Allah uu dilan ugu simo waxaanu abaal celin doonaa dhalinyarada yaryar ee mutadawiciinta ahayd ee gurmadka qaybtoodii qaatay. innaga oo ilaahay marka ugu horeeyo u mahadnaqayna xanuunka uu inaga kor qaaday, isla markaana u mahadnaqayna Bisha Cas iyo federationka oo maanta hawshii soo gabagabeeyey oo runtii taariikh lama ilaawaana ka dhigay la dagaalankii cudurkan. waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay ay ugu horeyso wasaaradda caafimaadka. haddii aan dadweynuhu kula shaqaynin dee waxba lama qaban kareen. dadweynuhuna aad inoola shaqeeyey, ganacsatadeenna ka qayb qaadatay, madaxdeenna dhammaan oo madaxweynuhu ugu horeeyo aynu ka wada qayb qaadanay sidii aafada ku timi gobolka loo soo afjari lahaa. agaasimaha wasaaradda caafimaadka Somaliland Saleebaan Jaamac Diriye ayaa xusay in tirada guud ee xanuunka shuban biyoodku uu soo ritay xilligii uu Somaliland ka jiray 6,000 oo qof, waxaanu shacabka gobolada iyo degmooyinka ugu baaqay inay ka taxadiraan in xanuunkani mar kale soo laabto. ururka Bisha Cas oo Bakaal ugu horeeyo oo ay jirto Kaltuun iyo Xasan iyo Cabdi Cawil iyo dhammaantoodba intii ka qayb qaadatay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. intii dhimatayna ilaahay ha u naxariisto, intii ilaahay ka badbaadiyay ilaahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ha yiraahdeen. xanuunka laakiin waxaan leeyahay isdhiganina xanuunku ishuunbu isku yara qabtay laakiin wuu soo laaban karaa haddaynan isdhigan.
wasaaradda caafimaadka ugu horeeya wasiirka iyo madaxdeeda kaleba waxay markastaba u feegsanaan inay ay dadaalkii hore iyo wacgelintii hore sidii hore si ka badan aan u wacgelino. ugu dambeyn waxaa munaasabadani shahaado sharafya lagu maamuusay dadkii kala duwanaa ee sida weyn uga qayb qaatay gurmadkii loo fidiyey shacabkii uu asiibay xanuunka shuban biyoodku. Axmed Saleebaan Carab Axmed Kaafi, Bulsha TV, Burco.